السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داوديال كسر هذا ورئيس جارة ونولي لنا إنه أحمد عرب محمد أو أقويان هيرك اللباد يا جامعة كديارية علومتا استراتيجية إيو أمنية مركورة مدن كسر له SNTV دلجر ورئيس جان داوديال وحنو ديرة كسارين سوعلنتا أمدي بسوعلنتا عيد مدى Soomaaliyeed tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea mudane waan ku soo dhaweynaynaa waxaanu gudagalaynaa barnaamijkeena maxaa lagu macnayn karaa in dhamaadka bishan dalka ay dib ugu soo laabanayaan ciidamadii Soomaaliyeed ee muddo tababarka kala duwan ku qaadanayay Eritrea sida uu xaqiijiyay madaxweynaha qaranka marka hore waan dhawahay dhammaan shaqaalaha telefishinka Daljir iyo daawadayaashana waan salaamayaa markaan su'aasha guda galo waxaa lagu macnayn karaa xilliga hadda lagu jiro ciidamadii muddada maqnaay dalka Eritrea tababarka u jiray inay dalka dib ugu soo laabtaan waxaa la dhihi karaa waa guul weyn run ahaantii oo u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaad dareemi kartaa ciidan muddo ku dhow 4 sano waddanka tababar uga maqnaay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo meeshaas tegay muddo aan qiyaasaa inay laba jeer tahay soo arkay marka xilligan inay hadda sida aan dhageysanay madaxweynuhu wuxuu sheegay inay imaanayaan waqti dhow oo waliba bisha soo socota dabayaaqadeeda ay soo wada geli doonaan dalka taas waxay ka dhigan tahay guul aad u weyn oo ummadda Soomaaliyeed gaartay marka loo fiiriyo xaaladda lagu jiro oo maaragtay aan dareemi karno waddanku xaaladda uu ku jiro waayahay ahmiyad noocee ayay ciidamadani u leeyihiin dib u xoreynta dalka ama inay qayb ka noqdaan howlgallada dalka looga xoreynayo kooxdan khawaarijta al-shabaab door noocee ay qaadan karaan waa ciidamo muddo la tababarayay sida madaxweynuhu markuu goobta tagayna qaybo kala duwan ayay ciidamadan leeyihiin ciidamadan horta sida horeba loo sheegay adigana haddaba aad tilmaamayso waa ciidamo kala duwan oo qaybaha kala duwan oo ciidamada maaragtay u tababaran loo soo tababaray markii hadda madaxweynuhu uu ku dhawaaqay run ahaantii ummadda Soomaaliyeed waxay dareentay hamigii la lahaay ee ahay nimankan khawaarijta in laga guuleysto inuu aad u rumoobayo maxaa yeelay waad ogtahay madaxweynuhu marka uu ku dhawaaqay nimankan in lala dagaalamo oo shicibkii iyo maaragtay dawladdii iyo beesha caalamka kuwa naga taageero oo iskaashanaya ay si toos ah gulf ugu qaadeen waad ogtahay guulaha laga gaaray maanta heerka la marayana waad dareemi kartaa gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo Galmudug ciidamadaas marka ay soo gaaraan dalka waxaan isleeyahay waxay fursad weyn u noqon doontaa kow horta in goobaha aysan ka bilaaban in lala dagaalamo nimankan oo aan lagu dhiiran maamulada iyo gobolada qaarkood aan lagu dhiiran wali in lagala dagaalamo nimankan inay horta looga faa'iideysan karo inay ka soo cirib taraan qaasatan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland inay ka geysan karaan in goobahaas ay ka bilaabaan dagaal nimankaas lagula jiro waxaa kaloo looga faa'iideysan karaa deegaanadii laga saaray nimankan waxay u baahan yihiin ciidamo maadaama ciidamadu ay qaybo kala duwan u qaybsamaan oo ciidamo badeed iyo ciidamo dhuleed iyo ciidamo qaybaha kala duwan ee ciidamada waxaa looga faa'iideysan karaa deegaanada laga xoreeyay in la geeyo qaybo kamid ah ciidamadaas oo qaybahooda ay u dhisan yihiin amnigana ay saas qayb uga noqdaan ciidankaasi dabcan muddo ayaa la sugaya xogta ciidanka dad badan oo Soomaaliyeedna waxay dhagta u taagayeen ama ay ka war sugayeen in ciidankaasi maalin un dalka dib loogu soo celin doono madaxweynuhu waxa uu sheegay dhowr mar in ciidankan qorshahooda dawladdu ay diyaarisay
muxuu ka bedeli karaa is leedahay dareenkii hore u jiray ee dadka Soomaaliyeed ay ka qabeen soo laabashada ciidankaas? horta dareenka ciidamada laga qabay dadka intooda badan wuxuu ka baxay markii madaxweynaha jamhuuriyadda uu tagay Eritrea ka soo laabtay waalidkii dad metelay oo la kulmay madaxweynuhu. horta dareenkii ciidamada laga qabay soo laabashadooda markaas uu baaba'ay oo dee madaxweynihii jamhuuriyadda oo tegey markaas uu uga warrama waalidiinta kadib madaxweynuhu dib uu laabtay. markuu madaxweynuhu laabtay shakhsi uu la kulmay mid uu wareystay si aan arkaynay oo dhex qaadiyey hal buu u weydiiyey dareen waalidnimo qadarin iyo ay ku dheehan tahay dee maaragtahay damqasho oo u qabay jiilkaas meesha dalkooda dadkooda inay difaacaan tababarka loogu diyaarinayay uuna tusiyey. marka arinta oo ku saabsaneeday waxa laga qabay ciidamadaas ma soo laabanayaan mise sooma laabanayaan maruu dadka ka baabaa. waayahay dabcan sidaan sheegnay ciidankan waa ciidan qaybo kala duwan leh cududooduna ay aada u sarreyso cadadkooduna ciidan fara badan uu yahay tababar heer saraana qaatay ma la dhihi karaa ciidamadan haddii dalka ay dib ugu soo laabtaan kaashadaan shacabka Soomaaliyeed ee u diyaara khawaarijta iminkana deegaanada degmooyin badan ka xoreeyay iyo ciidamada kala duwan ee qaranka ee hadda gudaha ku jira waa kuwii soo afjari lahaa shabaab ayaa Soomaaliya ka armaya qayb ka mid ah waan isleeyahay maxaa yeelay horta Soomaaliya markii loo fiiriyo ciidamo aad u tiro badanaa dibadaha loogu soo tababaro wadamada saaxiibka ay leeyihiin qaasatan ciidamadan horta ebed ciidamadii Soomaaliya loo tababaray waxaan isleeyahay waa ciidamadii yacni ugu habboonaa oo xilligoodu yimid weliba haddii oo aan la dhihin waa ciidamadii ugu tirada badnaay oo hal mar dibadda lagu soo tababaraa la dhihi karaa. xilliga ay ku soo aadeenna waa xilligii loogu baahi badnaay oo hadda aan horeba usoo sheegnay waa xilligii loogu baahida badnaay oo nimankan khawaarijta ah ay marayeen xilli gebangeba ah. waxaan isleeyahay nimanka maaragtahay ciidamadaas aadka iyo aadka tababarka kala duwan qaba markay dalka dib ugu soo laabtaan waan isleeyahay waa dabargoyntii nimankan khawaarijta meeshii ugu dambeysay insha Allah hadii la yiraahdo. waayahay maadaama hadda dalka ay ku sugan yihiin ATMIS oo caalamku iyo igad Afrikaba ay qorshaheeda gacanta ku hayaan kaalin muuqatana iminka aysan kaga muuqan howlgalka dagaalada kafoolka ah ee ka socda gobolada dalka khawaarijtana lagu xoreynayo ma kula tahay ATMIS in uu ay soo koomatay kaalintoodii ku aadanaa inay gudaha Soomaaliya sii joogaan isla markaasna ay nabadda Soomaaliya ay dhaqaale fara badan iyo waqtigaas iyo maskaxdaasba lagu sii bixiyo? horta ciidamadan oo ATMIS hadda magacooda lagu soo gaabiyey waqti dhow waa ciidamo run ahaantii waqti ayaga naftirkooda dalka Soomaaliya looga baahnay gurmad wadamada aan jaarka nahay iyo wadamo kaleba ay noogu soo fidiyeen. waxaa la dhihi karaa yacni kaalin aada u fiican ay dalka Soomaaliya ka qaateen inay dowladda Soomaaliya ay caawiyaan. maxaa yeelay waxaad dareemi kartaa inta uga dhimatay inta juhdiya oo ka baxday iyo waqtigii yacni ay xiisaha dowladda Soomaaliya u lahaayeen kaalintii ay ka qaateen shabaab. waxaan isleeyahay marka xilligii waxaa la soo gaaray dadka Soomaaliyeed ee iyagu gacmahooda amniga ku qabsan lahaayeen. waa lagu kaalmey karaa mar iyo labo laakiin joogto qof loo kaalmey karo ama waddan loo kaalmey karo ma jiro. waxaan isleeyahay marka ciidamadan iyo ciidamada kale oo ayaguna tababarada ku jira haddii ay soo baxaan sida haddaba muuqata Soomaalidu ayaga gacantooda maaragtay amnigooda ku sugaya khawaarij la dagaalamaya goobo badan ka sifeeyey
ayagoo oonan admis kaashanayn. marka kuwan iyo kuwo kaleba hadday kusoo darsoomaan waxaan isleeyahay oo geesiyada lasoo tababaray sidaas oo kale dalka dib loogu soo celiyo kuwana dalka lagu tababaro waxaan isleeyahay waa ka maarmi doonaa in nala caawiyo. sida haddaba aad ogtahay admis waxaan u dhimanaan isleeyahay heshiiskooda sanad baa u dhiman. haddaan heshiiskaas loo cusboonaysiin soomaalida dantaaba ku kalifaysaba inay maaragtay hadda kadib gacantooda ay amnigooda ku sugtaan. waayahay intaana ka bixin su-aalaha la xiriira admis ciidamadan shisheeye ku sugan gudaha dalka sida qorshaha uu yahay admis madaxweynuhuna uu dhowaan ka dhawaajiyey waxa ay bixi doonaan dalka dhammaadkii 2024. taasi fursad ma u tahay dowladda ciidamada qaranka mase ku filan yihiin ciidamada qaranku baa is leedahay xilligaasi in goobaha hadda admisom ay ku ama admis ay ku xoogan tahay oo hay-adaha dowladda xafiisyadooda qayb ka ah inay amniga ay ka fargalayaan. ciidamada Soomaaliya marka la qeexayo awoodaha ay leeyihiin awoodda ugu weyn waxaa lagu qeexaa wax la dhaho quwa macnawiya. يعني قوة يعني معنوية وعندما الصومالية وادد يعني أوديسن قلبيا مركا أي عدوة لا دجالمايان هي مركا يعني لا فلقينا يعمل الشيء جايو دمان وحلو معناها قوة قرصون أو للدريم كرني عندما الصومالية كجرت مركز تبع وحلو بهاي هجامي مركا hogaamiyaheediina waa joogaan isleeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku dhiiraday arrintaas inuu amnigii iyo xoreyntii ciidamadii jamhuuriyadda lagu aaminay kana guul keeneen. waxaan isleeyahay wax yaroo dhiman oo ah in maaragtay ciidamada hadda aan ka hadlaynana dib dalka ugu soo noqdaan waxyaalaha kale oo u baahan yihiin xarumaha dowladda meelaha ay gacmaha ku hayaan admis na loo helo ciidamo sidaas oo kale u tababaran oo lagu aamini karana waxaan isleeyahay waa laga maarmi karaa aslanba shisheeye. waxaa ka dhawaajisay ciidamada Soomaaliyeed quwadooda waxaa qayb ka ah quwad u gaar oo macnawi ah quwa macnawi ah eragaas ayaad adeegsatay maxaa kala jeeda? waxaan kala jeedaa dee quwadaha qaybsama. quwadda macnawiga marka waxaa la lahaa quwad aanan muuqanin oo si macnawi ah qofku wuxuu leeyahay awood markasta marka ciidanka Soomaaliyeed in la qeexal rabo quwadahooda quwadda ugu weyn ay leeyihiin ee cadawgii hore dalkan Soomaaliya ugu soo duulay kula dagaalami jireen ama cadawga hadda joogaba ay kula dagaalamayaan oo adigu marqaatiga ka tahay waa quwad ruuxiya oo yacni cadawguna nooga baqo kuwa hadda joogana nooga baqan kuwii la soo dhaafana nooga baqi jireen kuwa soo socda nooga baqi doonaan insha Allah. waayahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay sidee u aragtaa howlgallada dalka ka socda ee lagu cirabtirayo khawaarijta qaybo badan oo ka midana iminka laga xoreeyay shacabku iyo ciidamada dowladuna iskaashanayaan? wallaahi howlgalladaas madaxweynaha jamhuuriyadda hore uga hadlay ku baaqay in nimankan cadowga ah dalka laga xoreeyo dadka Soomaaliyeed qaasatan gobolada dhexe Hiiraan iyo Shabeellada dhexe ee Galguduud iyo Mudug waa lagu dhiiraday. aniga waxaan ka mid ahay safar tagay deegaanada la xoreeyay oo ay ka mid yihiin Cali Guduud, Nuur Dugle ilaa iyo meesha la yiraahdo Ceel Baraf, Warciise, Geyfe, Gaaleef, meesha la yiraahdo Aqab Duco dhulkaas oo dhan loogan ku maray. dadka waxay u aamin yihiin ummadda Soomaaliyeed dowladnimada. nimankaanu dhib intay u soo geysan kareen waa u soo geysteen. aad iyo aad ayay maaragtay dib u dhac ugu rideen ummadda Soomaaliyeed. deegaanada qaarkood sida Aadan Yabaal iyo meelaha la midka 15 sano ay haysteen. degmo 62 degmo laga dhigay in 15 sano cadow haysto waxa waaye waa nasiib darro nagu habsatay. waxaan isleeyahay marka waa lagu guuleystay halgankaas inta dhimanna insha Allah hadii la yiraahdo hadii ayna soo gaaraan geesiyaashaas iyo kuwa la midka ah waa lagu guuleysan doonaa. ummadda Soomaaliyeedna baraarug weyn oo waxaa ka muuqda ah
nimankan in maaragtahay la cirib tiro hadday ahaa lahayd fikirkooda iyo manhajka ay maaragtahay dadka baraan, iyo haddii ay ahaa lahayd qaab awoodaba in loo cirib tiro qaab dhaqaale iyo dagaalada ku socda. waad dareemi kartaa inuu dagaalka qaybta dhaqaalaha iyo qaybta fikirka iyo qaybta yacni nimankan awooddooda lagu baabi'inayo, lagu jebinayo ciidankooda. marka waxaan isleeyahay xilligii oo Soomaalidu ay soo baraarugtay waa la soo gaaray, waana lagu guuleysan doonaa insha Allah. waxaan rabaa inaan kusoo gabagabayno ciidamadan madaxweynuhu ka dhawaajiyey in Eritrea dib uga soo laabanayaan. waa ciidan dabcan sidaanu sheegnay tababar heer sare qaatay. dowladda maxaa looga baahan yahay, qaabka istiraatiijiyadda looga baahan yahay howlgelinta ciidanka muxuu yahay haddaanu iftiimino? wallaahi horta ciidamada istiraatiijiyadooda lagu maamulayo wax iskale maaragtahay dadka maamuli doona oo madaxda u ah, laakiin mar walbaba waxaa ka digtoonaasho mudan ciidamada markii la keeno ayagoo caaboon oo aad u leelisan, wadaniyad ku jirto, dalkooda markay yimaadeen aad u faraxsan, baad haddana aragtaa iyagoo qaarkood balwad la baray, qaarkood yacni booqashooyin iskaga tegay oon dib ugu soo noqon, qaarkood yacni si unbaa loo naafeeyaa ciidamo quwad lahoo yacni dibadda wax ugu soo tababartay markay yimaadaan. arrinta ka digista mudana waxay tahay in qaababkii dufcooyinkii soo baxay loo naafeey jiray oo ay ka mid ahaaday inaan laha qabtirin baahiyaha ay u baahan yihiin, in aan maaragtahay in laga dheereeyo waxyaalaha dhibaatada ayaga ku ah sidii balwadaha maaragtahay waddanka kusoo kordhay oo kale. waxyaalaha caqabaadka ku ah ciidamada oo burburiya in laga ilaaliyaa mar walbaba maaragtahay